waxaan doonayaa laba qodob inaan ka hadlo ama ugu badnaan saddex qodob oo yaryar. marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo gobolka Banaadir. waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha iyo shacweynaha gobolka Banaadir. waxaan leeyahay Muqdisho iyo Banaadirba waa hooygii ummadda, waa mideeyihii dalka, waa xaruntii midnimada, waa daartii ugu horeysay ee ay Soomaaliya ku soo hilowday, ku midowday waqooyi iyo koonfurba. qof kastoo Soomaaliyeedna hooy iyo u noqotay guri. waa astaantii midnimada qaranka. marka way istaahishaa 13 xildhibaan iyo wax ka badan in ay helaan. caasimadu sida Ilaahay u doortay labada xaram dhulka guud ahaan adduunweynaha aynu aragnay laba buqcadood oo barakaysan oo uga doortay Makka iyo Madiina ayaa Ilaahay qadaray una doortay inay u noqoto Soomaali xarun 60kii isugu yimaadaan ku midoobaan caasimadii ummadda Soomaaliyeed noqoto. mar labaad burburkii kadib Muqdisho waxay nasiib u heshay in ay haddana 10 sanadood oo jahawareera shirkii Carta 2000 markii la isugu yimid inay mar labaad hooy u noqoto iyo meel ay Soomaaliya ku soo hilowdo, ku midowdo, caasimadoodii dib u soo haybiyaan, isuguna yimaadaan. dawladnimada maanta aan harsanayno ee hana qaadaysa oo aynu dib u dhisayno oo tiyaatarkan shirka caawa aynu ku qabsanay stadiumkii aynu daah furnay iyo 2000 ilaa hadda dawladnimadeenu horumarka ay gaadhay inay noqoto hooygii isugu keenayay Soomaali ee dib u mideynayay, dib u mideeyo mar labaad inay noqotona nasiib bay u heshay. marka waxaan leeyahay hambalyo mar labaad. Muqdisho matalaad way heshay 13 iyo wax ka badan ba way istaahishaa. maqaamkana qodobka 9aad ee dastuurka ayuu ku xusan yahay. awoodaha golaha shacabka ama baarlamaanka awoodda uu leeyahay weeye. xukuumad ahaan iyo dawlad ahaan iyo dhammaanteenba iyo gobolka Banaadirna waan ka wada shaqaynaynaa. marka labaad waxaan leeyahay hambalyo golaha shacabka inay ku dhiiradaan golayaashii horena ku dhiiran waayeen inay matalaad siiyaan una gartaan go'aamiyaanna Muqdisho gobolka Banaadir inuu matalaad helo. waxaan ugu hambalyeynayaa mar labaad golaha shacabka inay tixgeliyaan codsigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 6 bisha Juun khudbadiisii labada gole uu uga codsaday in ay ansixiyaan matalaadda gobolka Banaadir inuu ka helo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qodobka saddexaad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya waa nidaam baarlamaaniya isku dhex jira madaxweyne iyo baarlamaaniya laakiin baysku uu yahay baarlamaanka. shacweynaha Soomaaliyeed xildhibaanada sharafta leh ee golaha shacabka ayay igmadeen iyagoo ka wakiila golaha shacabka ay xildhibaanaduna dhaleen ama uu ka yimaadaa ama ay doortaan oo si wakiishan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu noqdo madaxii qaranka. madaxweynuhu wuxuu magacaabaa oo cumaamada oo uu fulinta u igmadaa ra'iisul wasaaruhuna marka uu la tashado madaxweynaha kadib waxa uu soo dhisaa xukuumad. intaas oo dhan marjacood min madaxweyne ra'iisul wasaare xukuumad marjaca ay ku noqonayaan waa golaha shacabka. accountable yihiin bayska siyaasadda Soomaaliya. marka siyaasadda Soomaaliya waxa haga baarlamaanka waa nidaam baarlamaaniya. golaha shacabku budug weyn buu ka yahay. aasaas dawladnimadeena baarlamaanka oo ah saldhig u ah marjaca sharcigu uu ka soo baxo awoodnimada lagu helaa waa isaga. dunida aynu ku metelnaa waa isaga. marjaca aynu ku noqonnaa waa isaga. budiga saldhiga iyo aasaaska dawladnimadeenuba waa baarlamaanka. marka wax la aqbali karo ma aha in mar kasta marka baarlamaanka yimaado la yiraahdo 3 sano markuu shaqeeyo albaabada ha loo xiro. waxaan ugu hambalyeynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeen. habeenadii dhaw sidii u shaqeeyay waynu ogeyn markii maghribkii rawaxaan way isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqeynayeen. shaqooyin baa idin yaal baarlamaan baa tiin dastuurka saldhigu oo shuruucda dalka ugu sareeya hay'adda dawladnimada ugu sareysaana waa idinka. ha aqbalina in la yidhaahdo 3 sano marka jirtaan kala taga 10 ninna masiirka dalka ha matalaan 10 nin sharciyad dejiyayaal ha noqdaan 10 nin siyaasadda dalka ha hoggaamiyaan. budiga dawladnimada Soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye. idinka awoodda aad nasiiseen baan ku shaqeynaa. idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku shaqeeya. idinka awoodda aad nasiiseen baa ra'iisul wasaaraheenu ku shaqeeya. awoodda aad nasiiseen baa xukuumaddu ku shaqeysa. mar walbana inaad la xisaabtantaan
ويردان سوى حقبتين هالك وحمر الإنسان تراهدانا إذن كاس كلا إلا برلمان لصوت دورتي وإذن بدلوه دولة نماذج ذلك يعلن كصومالي يترن نماذجنا برلمان وصدق جسوا إذن كا هيالنا إكلا تجلا إذن يرا ودلان كي هو يدي دلما ضبري مينو أقبلنا تا برلمانو إذن كا إنه أحسن مدحوينها يدولة نماذج يدمانتين وأشود بربر تاجنا هاي شقدي النقبصة شروع إنه وضع جارسية ذلك دور شهر قف إياها القط أخي إن الدقاقضة هيرك شو دولة دولة وفلين سوانا كل دقمينا شروع الأساس ساعتين وابن هالسنتين وقت بدن قادم مايو